magacaygu waa Maxamed. Qaxooti baan ahay oo macallin baan ahay. Way imurjisaa marka mid ka mid ah ardayda ay dhibaato haysato. Salma ma aysan helin waqti ay wax ku barato, inkastoo ay haysatay isbuuc dhan. Aabaheed halkaan ma joogin. Sidaa darteed hooyadeed waxay ku khasbanaatay in ay shaqo hesho. Intii ay shaqada ku jirtay, Salma waxa ay ahayd in ay caawiso oo daryeesho walaalaheed. Waxay sugayeen in ay ku biiraan isaga muddo dheer hadda. Anoo niyad jabsan ayaan guriga ku noqday reerkaygii. Waxaan noqday macallin si aan u caawiyo carruurta, laakiin aad bay u adkayd markii ay dhibaatadu ay tahay mid aadan waxba ka qaban karin. Xaaskayga ayaa ii dhiibtay warqad. Waxa ay ahayd casuumaad shirka bulshada UNHCR ee mideynta qoyska. Waxaan la yaabay in ay tani ay noqon karto jawaabta dhibaatada ardaygayga. Patrice, UNHCR shaqaaladeeda ka tirsan, ayaa ka hadlay dib u mideynta qoyska. Waxa ay tahay cidda xaqa u leh iyo sida UNHCR iyo howlgalayaasha ay u awoodi karto in ay taageerto qoysaska si ay dib ugu midoobaan. Waxaan la cajabay in ku dhawaad kala badh ka qaybgalayaashu ay xubin qoys waddan kale ku leeyihiin. Kadib markii la weydiiyey, Patrice ayaa sharaxday in isu keenida qoyska qaxootiga ay isu keento xubnaha qoyska ee kala maqan iyadoon loo eegin inta ay kala maqan yihiin. Inta badan sharciyada qaranku waxay oggolaadaan lamaanaha isqaba, waalidiinta, carruurta yaryar iyo carruurta ku tiirsan in ay dib ula midoobaan iyaga. Qaarkood wadamada xubnaha kale ee qoyska ee ku tiirsan ayaa sidoo kale xaq u leh in ay codsadaan. Laakiin mid wuxuu u baahan yahay in uu hubiyo sharciyada dalka uu rabo in uu dib ula midoobo qoyskiisa. Dib u mideynta qoysku waxay qaadanaysaa waqti, laakiin waxay awood u siinaysaa dadka in ay nabad ula midoobaan qoyskooda. Khataraha ka dhalan kara in dhulka iyo badda lagula safro tahriibayaalka iyo mukhallasiinta ayaa aad u badan. Waa arrin khatar ah. Qayb ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa walaac ka qabay u qalmitaankooda, habka iyo inta ay qaadanayso. Patrice ayaa ka caawisay in ay fahmaan in ay u qalmaan. Waxaan ka walaacsanaa in tani ay ku kici karto lacagaadu badan, laakiin waxay xaqiijisay adeegyadeedu in ay yihiin lacag la'aan. Markii aan ka soo baxay kulanka, ma aanan ahayn caawin la'aan. Waxaan la wadaagi karaa xogtan ardayda si aan uga caawiyo in ay dib ula midoobaan qoyskooda. Qoyska mideyntiisu waa xaq. Waddan kasta waxa uu leeyahay shuruudo u gaar ah oo uu xaq u leeyahay iyo habraaca fududeynta isu keenida qoyska. Qoyskaaga haddii aad kala maqan tihiin, fadlan ka eeg bogga dowladda ee uu qoyskaagu degan yahay, bogga UNHCR ee waddanka aad degan tahay, ama la xiriirto UNHCR ama hay'ad la wadaago si aad macluumaad dheeraad ah u hesho. Adeegyada dhammaan oo ay ku jiraan kaalmada dib u mideynta qoyska ee UNHCR iyo howlgalayaasheeda ay bixiyaan waa bilaash. Qof haddii uu ka codsado lacag ama wax samayn ah si aad u hesho adeegyo, ku wargeli mid ka mid ah shaqaalaha UNHCR meesha aad joogtid.